الله ما مقليسان warwaa idinka xishoonayna oo indhahaasa idinka fiirinayna oo ummaddu waa wada marxaati oo taariikhdu way isqoraysaa waxaan idin sheegayaa awladul caasim aan la hadlayaa qof kasta oo ciyaal xamara oo halkan iigu jira inuu imaqlaan rabaa مقل ما جرا dhalinyarada reer muqdisho oo ma aragtay wadaniyiinta ah oo jecel in ma aragtay Soomaalinimada lagu ekaado oo ma aragtay aad moodo in wadaniyadu kaligood ay la dhalatay dhalinyaradaas aan la hadlayaa waxaan arkay dhalinyaro badan oo caan ah oo social media caanka ay lahayd wax social media caan la yiraahdaa jiro dhalinyaradaas mid kasta soo hadla wuxuu leeyahay maxaa waaye qabiilkaana la kula dhaqmaayo annaka ciyaal xamaraan nahay annaga ciyaal xamaraan nahay qabiil ma kasayno ma rabno inaan qabiil idin kula dhaqanno maxaasaan loo yeelayaa Soomaalinimada ma la ilaaliyo horta Soomaalinimada kaligiin awardiyaha ka tiin anigu wala yaabanahay kow waxa ku soo haray warqofku bila aadanka ah soo kula dhaqma loola dhaqma anigu weligeena taasan aaminsanaa qofku soo kula dhaqmo ula dhaqmay waxa ku soo haray dadka fanaaniinta ah oo makarafoonka haysto oo title-koodu yahay fan title-koodu dadka fanka sheegta dadna fanka waa sheegtaan dadna waa fanaaniin dhaba okay dadka isku ma jiraan marka war fanaaniinta waa dad badan waa ummad ilaahay oo ma aragtay shakhsi kasto shakhsiyad u gooniye iyo personality u gooniye iyo wuxuu aaminsan yahay jiro war qofkii fanaan sheeganaya ee makarafoon haysto ummadda Soomaalida oo dhan uu fanaan u yahay marka idinka wixiina idin kala saarnaadaan la rabaa qofkii Soomaalinimo wax ka sokeeya idin la imaado oo ii sheeg maaliko laba qof oo ilma adeeradiisa arkana qabiil ku soo heesa reehebela ah iyo kana ay ku soo heeso oo ma aragtay markuu uu dadkiisa ku dhex jiro ama uu dad afar xabo ilma adeertiisa arkana ma aragtay inta futada kala qabto qabiilkiisa ma aragtay ku xiniyo weynaada oo adiga ku tuso qabyaalad oo qabiil ku soo heesa reehebela ah kana ay ku soo heeso markuu saas sameeyana adiga markuu rabo inuu ku imaado ama uu show meel u aado ama uu xamar inuu imaado uu rabana عيال حمر نما تورنايو عيال حمر aniga haatan Soomaaliyeed aan u heesaa ciyaal xamar aan ahay ana qabiil ma ka saayay laba bari la soo dhaha media la soo galgala hal heeso ciyaal xamar la soo qaada in laga daadsada la rabaa marka aniga waxaan rabaa dadka inaad kala saartaan oo aad kala barataan qofka insight-kana qabiiliga ka ah marka uu dan leeyahayna oo dantiisa faneed inuu guto uu rabo ama shacbiyad rabana ciyaal xamarnimada tuurta ciyaal xamarnimadu waa wadaniyad marka waa wadaniyad kullaya waxa waa ciyaal xamar ma rabaan inay qabiil sheegtaan ma rabaan inay dhahaan anaga reehebelaan nahay halkaas waxa ka cad inay dadka ka fiican yihiin inay ka qalbi fiican yihiin because reer koraad ma aha dhibaatada jirto waxa waaye dadkan waa reer koraad xataa haday ay xamar sheeganayaan waa tageen oo ayagoo koyta ay tageen kuma dhalan kuma korin ciyaal xamarnimada qiimaha ay leedahay ma yaqaanaan dadka rasmiga ah oo ciyaal xamarka ah qabiilku doonaha ahaado konton sano haduu jiro 60 sano haduu jiro ani ciyaal xamar ah xamaran ku dhasho ku dhaha qabiil ma kala hadlaayo laakiin ka reekoraadka ah oo qabiilku ku weyn yahay oo qabiiliga insight-ka ka ah markuu danka leeyahay ciyaal xamarnimo u sheeganaya oo waa kugu xoqanaa kaarkaas ciyaal xamarnimadu xoqanaa markuu ka soo tago diyaaradda soo raacana afar ilmaadariis markuu arko fotoda kala qabanaa dadka noocaas ina kala barataan aan rabaa waa waxa hadda social media ka socdo waa waxa dad badan karakterkooda ay ku lumiyeen ayaga lumiyay ayaga shacbiyadooda luminaya marka ani waxaan rabaa shacbiyada maadaama ayagu iska luminayaan oo ayagu ay isugu talagaleen inaysan idinka aqli idin la dheelin anaga aqli aan dhahnaa waxaas ciyaal xamar waa fahamsantiin markaan danka leeyahayna waa ku qoqoslaa ciyaal xamar aan ku dhaha marka afar ilma adeerada ay arkana waa iska waala waxaan ku dhaha waxa ahay D5 aan ku dhaha D5 ah marka inaan la dhiiqaysana ma rabno marka aad qabyaalad muujiso ama aad qabiilkaaga ku faanto min su'aal rabaa inaan qabiilkaagu ku deeqo ha ku deeqo qabiilkaagu
هدا فنان تاي او عرفتينا إن قبيل كاغا مركا لا joogtana aniga qabyaalad itusto oo maanta oo qabiilkaaga aad ku soo heesto ku wardiso shacbiyad kaga raadsato marka aad aniga ila joogtana ciyaal xamar tuurato ma shaqaynayso marka waxaan idin ka rabaa ilowsha dhawiyaha inay iga dhaafaan reer xamar reer muqdisho majority hadaa rabtaan ahaada qabiilkayga ani hadaa rabtaan igu qabiil ahaada oo calashaan de majority waa run anagaaba ahba majority xamar dad baa degan waa la og yahay Soomaalina qabiil ay u kala degan tahay laakiin xamar markii la soo hadal qaado annaga waa xishoonayna caasimadda Soomaaliyeed waayaan leenahay qof kasto xamar ku dhashay ciyaal xamar of course so respect ya la rabaa xushmada la rabaa in la kala xishooda la rabaa 2023 qabyaalada la karkarinaayo xishoodka waxaan ka wadaa meenis adiga marka aad qabiil dhan aad rabto inaad colaad ka samaysato qabiilka fanaana ku jira dad magac leh ku jiro dad caanaha ku jiro afarta qof oo adiga aad ishaysaan markaad qabiil dhan u soo qaadato oo aad qabyaalad muujiso waxa soo galaya mid kasto magac lahaa way fahamteen soo waxaan ka hadlayo way fahmaysaan soo inaad urkayga fahmaysaan u malaynaya marka waxaan idin sheegayaa ummadan Soomaaliyeed ayada iska dhiban ayada kala daadsan fanka awal waxa la dhihi jiray waa hanuunin dadweynahan hanuunina haasaawinaha ahay hadda waa Soomaaliyan kala geynaa aan halaajina qabiil u kala saarnaa okay hadii ay taas hadii oo la rabo in la iclaamiyo hada fanaan kasta qabiilkiisa u heesa maanta video soo duube waxa dhahaysaa D5 aan ahayna adeerkay way kan anoo reer hebel ha dhahe birina waxa rabtaa inaa xaflad galmudug ama tagto ama xaflad ii sheeg ay leeyihiin gobol kale oo dad oo ma aragtay Soomaalida kamid inaad ka soo heesto oo qabiilkaaga ahayn oo lagu saxbiyaa rabtaa marka ayaga la joogtana waa qosle waxa leedahay aniga shanta Soomaaliyeed ah ay dhahaysid marka aad afar xabo ilma adeerta aragtana D5 aan ayaad leedahay D5 qabiil kaliya fanaan uma tiid qabiil kaliya fanaan uma tiid intaasaan fan ku soo jirnay intaasaan fanaan soo ahayn qabiil kuma deeqo marka fanaanta qabiil kuma deeqo okay marka qabiil aad soo hadal qaado marka ama qabyaalad iclaamiso oo qabiil ku soo heesto qof kasta oo qabiilkaas aad duraysid kamida way taabanaysaa uuna dareemaya qabyaalada aad ku dhaqmayso kala saarsaarka aad ku dhaqmayso qof kasta oo qabiilkaas kamid ah dareemaya mi fahamta Soomaaliya wax la soo qarqariyaa taqaanaan moqt marka aniga wax aan ka gubtay oo kaliya waxa waaye ciyaal xamarkan ilaahay xigmadu siiyay edabsan ciyaal xamarnimadu ku weyn tahay markii loo yimaado sa aragtan dadku u soo dhaweeya markii laga soo tagana wixii rabo lagu dhaqmaayo aniga intaas ay gubtay ciyaal xamarkan daacadda ah oo ma aragtay wadaniyada kaligood inay la dhalatay aad moodo oo qabyaalada lagu dhaqmaayo waxaas way waxaan diidanahay aniga soo ani ciyaal xamar waxaan idin leeyahay fanaaniinta Soomaaliyeed oo isugu kiimid qabiil kasto uu yahay fanaanka waa fanaankiini laakiin fanaanka qabiil ku soo heeso oo umada iska dhex saaro oo qabiilkiisa markuu la joogo xiniyo waaweyn ka dareentaan xamaraad joogtaan gambar gaabana ugu fariisanaysiin ciyaal xamarnimada maxaa ka saaran leediin dallad waay ciyaal xamarnimadu waa wadaniyade maxaa ka saaray ila caasimadda waad ila leedahay maxaa ka saaray oo aad qabiilkaaga ugu soo heesayso waa ku qabsanaysaan showga waa ku cidlaynaysaan bulud proof lagu ma kaxaynayo lama waardiyaynayo mana loo tumaayo dallada ciyaal xamarnimada marna in lagu baarto marna lagu qabiyaaladeeyo taas waa tan diidan aniga marna in lagu qabiyaaladeeyo qabyaalad lagu muujiyo marka dan laga leeyahay calanka Soomaaliya ka tin yarta lagu soo xirto oo calanka Soomaaliya iyo gacanta inta lagu soo xirto calanka sida calanka inaad ka xigto kale loo dhaqmo oo lagu niinikiyo markii ma aragtay xaflada rab in show meel loo aado la og yahay qabiilka ku badan magaaladaas kaba soo qaad hadda dibadda kale marka aadayna magaalada waxa la qabiila ku badan qabiilkaas afar bari la amaana ها ريهبل واي ريجل مدغا او بدن ريكنا او بدن waxa la rabaa in laga soo daadsado marka waxa waaye waa in aqligiinu shaqeeyo ciyaal xamar oo aqligiinu ha shaqeeyo aniga wax kale idin kulama dardaarmaayo fanaanka aragtaan inuu qabyaalad ku heesaayo qabiilkiisa ku ekaado fanaanka aragtaan inuu qabyaalad idin la imaado ama xataa ciyaal xamar wax yar ka sheego ciyaal xamar waa dallad weyn ma ka sheeganayno dadka majority ahaan u badnaano xamar laakiin cidna kama sheeganayno هذا قبيلة موجسنا قف كست أو مجعل أو أنا جايجان إنك بيرا أدري ما أو ما عرفت كي جبنايو هذا يدي شيء مالك عيال حمر صار هذا القردان أو ماكتان أنا جن نفتر كي جسوق جلاي because عيال حمر كي أنا هاي majority قبيل كميسا أو بدنا أنا هاي أو أدور إنسان كم ده هاي so
waxaad samaynaysaan qabiil ka fiican ma jiro dadkan rabaan inay ma aragtay marna idin qoslaan marna qabiilkooda markay arkaan xiniyaha yeelanayo waray anaga markaan qabiiladeena la joogno xiniyo waaweyn ma yeelano waa isku kalsoonahay ilaahay kalsooni uu nasiyay hadday fan noqoto iyo hadday qabiil noqotoba soo markaa ummadda Soomaaliyeed ay ku dhex jirtid ama qabiilkaaga la joog ama qabiil kale la joogna isku mid ahaataa la rabaa laakiin markaad miidiyaha soo gasho afar xabo ilmaadeerada ay ku qoslaan ku dhiiqayaan dhiiqa ku galiyaan كبعدنا عرفت إن هذا وحي أتكلك like nothing happen عمل والله وعيال حمر واتعلى عيال حمر واتعلى لقداس عيال حمر وكفوا هذا وحي قبيلة إذن لا إماضة مالكو قرطة بوغا كقريسين حصوص قر لي هذا وقريسين مالتها سنة كمركو حلقة وحاساسة ما يسال الذين إذيك الله مهرانا حمر والله مهران وهو يد الصوماليات وأكتنا الذي كمار من والله إماها يا برنامجات دعاية حفلات دعاية دولتنimadu waa socotaa horumarku waa socdaa fanaanka qabyaalad idin la imaada ciyaal xamar oo lafku wasa hadoo xamar yimaadana ha u gelina illa shalay ku soo caayay oo ku dhahay aniga reer hebel ah ciyaal xamar waa la wasaay marka waa salaamaya cisi sharaf igu noolaad aniga warkaygu waa cad yahay fanaaniinta Soomaaliyeed oo wada walaalahay qabiil ha kala ahaadaan laakiin fanaanna waa fanaan aqli badan oo dadkiisa isku wato midna waa mid bullshit oo markuu dadkiisa ku dhex jiran xiniyo waaweyn kula soo baxaayo oo adigina ka qabiil fiican yahay ku muujinayo oo qabyaalad ku soo heesaayo midna waa mid aqligiisa qabo dadkiisa ku dhex jiro oo nadiif ah hatta waxa uurka ka qabo laakiin markuu dadkiisa ku dhex jiro Soomaaliyeed ay isugu mid tahay waa salaamaya cis sharaf igu noolaada ciyaal xamar cisi sharaf ku noolaada waxaad tihiin dad lagu soo hirtaatihiin dad sharaf lahaatihiin waad ku raacsanayna qabyaaladda ka fogaataan laakiin dadku ha idin kala socnaadaan buugaana ku qoraysiin ninkii soo faaq dhaho meelaa ku qoraysiin waa salaamaya reekoraadka waxaan idin leeyahay aqligiina hor shaqeeyo